macdanta iyo shaqaalaha wasaaradda baatroolka iyo macdanta Soomaaliya ayaa maanta qaatay doorkooda ku aadan isxilqaan dalkaaga ku dhiso iyagoo maktabadda qaranka ka qabtay shaqo maalmeedkii sida joogtada uga soconaya maktabadda qaranka. shaqaalaha wasaaradda baatroolka iyo macdantu waa kuwo ku faraxsan shaqadan qarankeed dib loogu dayactirayo xarumaha danta guud ee dalka lagana soo qabtay shaqooyin loo soo dhabar adeegay haddana maraya meel fiican. barnaamijkan isxilqaan waxaana ilaahay uga mahadcelinayaa in maanta shaqaaluhu ay si fiican oo mug iyo miisaan leh uga qayb qaateen barnaamijkan isxilqaan. maanta shaqaalaha Soomaaliyeed maanta iyaga ayaa cudud u ah qarankan. agaasimaha guud ee wasaaradda baatroolka iyo macdanta Soomaaliya Xuseen Cali Axmed ayaa si weyn carabka ugu adkeeyay in dalka intiisa badan lagu soo dhisay iskaa wax u qabso maantana lagu dhisayo isxilqaan dalkaaga ku dhiso. agaasimaha ayaa sidoo kale iftiimiyey muhiimadda maktabadda qaranku u leedahay dalka. aragtidan cusub ee ah mashruuca isxilqaan ee dib loogu dhisayo guud ahaan burburkii xamar ka dhacay gaar ahaan xarumihii dawladda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddii aan nahay shaqaalihii wasaaradda batroolka iyo macdanta in wareeggan uu yahay wareeggii toddobaad ee kaga qaybgelayno haddii ay noqon lahayd dhismaha national theaterka xarunta murtidii madadaalada maktabadii qaranka iyo maaragtay madxafkii marka u soo laabto ahmiyadda maktabada qaranka. maktabadu waxay ka mid tahay mashaariicdii hore maaragtay dalka uu u sameeyey waxayna ahayd ubacdii ama laga daawan karay wax soo saarkii aqoontii dalka. maktabadu waxaa laga heli jiray wax alaale wixii qoraalah ee dalku uu leeyahay. cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho.